dadka oo la dhisaa ka horaysa dalka oo la dhiso waa halku-dhegga dadweynaha degmada raaso waxaana ka muuqataa dadaalada loogu jiro sidii dad aqoon leh loo soo saari lahaa dhanka diiniga iyo dhanka dunawigaba tababar muddo bil ah u socday macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada raaso tababarkan oo ahaa mid kor loogu qaadayo garaadka aqooneed ee macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa waxay ku qaateen koorsooyin kala duwan kuwaasi oo la xidhiidha culumta qiraa'ada qur-aanka kariimka tajwiidka iyo weliba maamulka ardayda dulqaadka iyo adkaysiga macallinka xilliyada lagu guda jiro geedi socodka barasho tababarkan ayaa waxaa bixinayay macallimiin reer raaso ah iyo kuwo ka yimid meelo ka baxsan magaaladani raaso haddaba munaasabad si heer sare leh loo soo agaasimay oo lagu maamuusayo macallimiinta koorsada dhammaysatay ayaa lagu qabtay masjidka salaam ee magaalada raaso haddaba waxaa halkaasi kelmadaha furitaanka ka soo jeediyey sheekh cabdulaahi sheekh cumar gudoomiye ku-xigeenka golaha arrimaha islaamka ee degmada raaso meel kasta oo joogana cibaadada ayaa looga baahan yahay haddii uu masaajid ku jiro iyo haddii uusan ku jirinba haddii uu socoto yahay iyo haddii uu muqiim yahay haddii xitaa suuliga uu ku jiro waxaa looga baahan yahay ruuxu inaynan qalbigiisa ka mannaanin cabsida ilaahay waad ogtihiin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam inta yar ee qadaa'ulxaajaha uu gudanhayo markuu ka soo baxo wuxuu dhihi jiray qufraanaka ilaahayow ii dambi dhaaf dhankiisa sheekh axmed shaam oo ahaa macallimiintii koorsooyinkan bixinayay ayaa ka warramay ahmiyadda tajwiidka qur-aanka tajwiidintiisa haddii alfaaddiisa loo noqdo soo dejitaankiisaabaa qur-aanku isagoo mujawaduu soo degay إلهي بأن له سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وحي قالوا بوحي دادن حال لو سود تشين النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كسو ضدو بابا هل مرؤون ما دفعة واحدة ما لو سود تشي كل بنت ير سؤال كل كي لويديو وآموسية آيات لو سودي بمحيط مر قرية ما لسود تشيالير وحي قالوا بيه قال لها باسدا يري إلهي بقى جوابه وحول كذلك أرنكو أساسه سدا آيات قرآن لو سود تشينيهم بكو صعنية وحانا سدا لو سمعني يا بلي لنثبت بيه فؤادك قلبي قاقا سان وسكنا لي sidoo kale sheekh mukhtaar sheekh maxamed ayaa ku dheeraaday ahmiyadda barashada cilmiga iyo ku dhaqankiisa wuxuuna bulshada islaamka ugu baaqay in ay cilmiga ay bartaan ku dhaqmaan alquraanu xujjatun laka aw calayk quraanku cilmiga waxyaabaha ugu horreeya ka mid ah laga soo hadlayay haddii markaa inuu xujo ku noqdo adiga xujo ku noqdo ku garab istaago inuu dushaada xujo ku noqdo ku dacweeyo dad ku amal fali waydo labada mid buu noqonaya ilaahna badbaadiyo culimadii yahuudeed markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka hadlayay cilmiga ay baranayeen haddana aynan ku camal falaynin mathaluhum ka mathali lximaar buuri ilaahay saasuu ku shabbah dameer oo kale weeyaan anigoo ku hadlaya afka culimmada reer raaso waxaa iclaam guud aan bixinaynaa iyo baaq guud aan ogeysiinaynaa dadka muslimiinta ah ee caalamka ku nool gaar ahaan dadka dariska ah ee muslimiinta ah gaar ahaan dadka deegaanka aan wada degannahay ee deegaanka ehelkiisa ah gaar ahaan culimmadooda inay isu taagaan camalfalka diinta islaamka iyo barashadiisa labadaba inay qayb lixaadle ay ka qaataan oo diinta koryeelkeeda sidii lagu howlgali lahaa dhammaan ay isu taagaan wax kastoo dhibaato ah midda looga bixi kara middaas weeyaan sidoo kale sheekh cabdisalaam sheekh maxamed ayaa ka warramay tababarka iyo koorsooyinkii lagu qaatay siminaarka ama dowrada macallimiinta loo soo hayay waxay ka koobnaayeen barnaamij aad u badan buu ahaa macallinkii markaas sidaa looga dhis xagga qur-aanka ee lagu dadaalo macallinku dad buu waxbarayaa dadka uu waxbarayo arrimo kale uu sii baahan yahay uu sii barto waxaa ka mid ah ummaddan wax u dhigaya maamulkeeda ummaddan suu u maamulaya dowladii waxaa ka mid ahaa idaarat xalaqaati alqur'aaniya qur-aankii wuu bartay macallinkii si fiican baa loo dhisay siduu ummadda u maamulayaa taasaa ayaa waxyaalihii ay ku barteen ka mid ahaa dambeyntii macallimiintii ka faa'iidaysatay tababarkan
ayaa dareenkooda ka waramay. u mahadceliyo awalan ilaahay noo suurtageliyey dowladaas inaan ka qayb qaadanno. marka labaad waxaan iyana u mahadcelinayaa macallimiinta sharafta leh ee waqtigoodii qaaliga ahaa noo huray. waxaa weeye inay ay noo faa'iideeyaan. intaas macallimiinta waxaan leeyahay wax weyn bay noo qabteen. waxaa weeye uma kaaftoomi karo oo waxa ay noo qabteen badiil kama siin karo, laakiin ilaah baan ugu ducaynaynaa. waxaan leenahay ilaah baan idin weydiinaynaa in ilaahay wax weyn idin siiyo. fajazaakumullahu cannaa khayran baan idin leenahay. isku soo wada duuba waxaa magaalada Raaso ka socda dadaallo ballaaran kuwaasi oo kor loogu qaadayo aqoonta iyo garaadka bulshada degmadani Raaso. dadaaladaasi ayaa waxaa dhexda u xidhay culimada diinka degmadani Raaso. Cumar Maxamed Cali Cumar Dhago, telefishinka Saab.